بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogto dal iyo dibad waan salaamayaa salaamta islaamka wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto dal iyo dibad waan salaamayaa salaamta islaamka wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi maanta waxaan halkan soo fadhiistay inaan ka hadalno arrimo dhowr ah oo ay ku saabsan magaalada Hargeysa iyo arrimaha ka socda number 1 waxa la yaab leh oo aan dhicin dhaqan iyo sinjitoona loo lahayn oo ka dhacay oo ku soo kordhaya beesha Somaliland waliba caasimadda Hargeysa ayaa waxa dhacay maata meel degan iyaga iyo xoolahoodiiba inta ciidan yimaadeen oo jirkaama gaas soo qaateen ay ku gubeen iyo xaafadan la yaa Istanbul ee xabaalaha agteeda inanka aan wali la aasinay 18 jirka ee xaafadana lagu gubay dhaqan iyo sinjitoona uma inaan lahayn haddii dawladdu jirto waxbay ka qaban lahayd arrimaha noocaas ee ka dhacay foosha xun leh se waxaan leeyahay aad baan uga xunahay waana nagu soo ducaynaynaa masaakiinta in ilaahay dadka dhibaatada ku sameeyay in ilaahay ka qabto oo ilaahay shimbir soo diro taa halkaasaan ku dhaafaya waxaan maanta halkan soo fadhiistay inaynu ka hadallo oo aan ka hadlo oo aan idiin qeexo maayarka iyo maayar ku-xigeenka magaalada Hargeysa sidaynu ognahay maayarka iyo maayar ku-xigeenku waxay ugu faanaan magaalada Hargeysa marfashyada inay leeyihiin nin walba intaasoo balood iyo intaasoo qasri u ka dhistay Hargeysa oo ay hantidii qaranka ee maatada ay cashuurta ka ururinayeen reer Hargeysa ay ka dhisteen iyagoo taa aynu ogeyn ayaa maanta ninka maayarka la yiraahdaa intuu soo fadhiistay meeliya markii waxba u qaban waayay ee ay xaafadna u geli weyday ee xaafadi intay isxilkaantay iskaa wax qabso ku dhisatay xaafadahoodii laamayeereer ee uu yiri laamagoodana waxba maaha xaafadaasina waa argagixiso ee culimada iyo cuqaasha iyo ummadda Somaliland ee Hargeysa degan uu kaga dhacay ku gafay ee uu ku sheegay dadkii uu xukumayay isagu maayarka oo argagixiso ilaahay baa idinku dhaariyay ma isaga argagixisa mise maatada iskaa wax u qabsatay iyagu isxilqaamay ee markii waxba loo qaban waayay wadooyinkooda iyo iska xooggoodii iyo xoolahoodiiba wadooyinkoodii iyo suuqoodii ku dhistay ayaa argagixisa inankaa yare sida gafanaa u naaxay ee ku naaxay dhiigga iyo xinjiraha agoonta iyo maatada suuqyada baradhada iyo basasha yar la fadhida ee awoodda gaara isaga iyo maayarka ku-xigeenkiisu ay la soo baxeen haddii uu apologize ka bixin waayo arrintaa uu sameeyey waxaad ogaataan dee in wixii meeshaa ka dhaca inankaa yaree gafanaa sida gafanaa u naaxay dee in halkiisa loogu tegayo taasina waa taa waxa kale oo la yaaba awoodda intaa leeg halkay ka keeneen maayarkan iyo maayar ku-xigeenka waliba maayar intuu guurtidii iyo baarlamaankii soo dhex fadhiistay ayaa wuxuu yidhi madaxtooyadana waxaan u raynaa buurta kala jeexan waan dee wani 100 jeer idhi madaxtooyada madax lagu steedi ka sheegan jiray guurtidana waxaan u rarayaa halkaa baarlamaankana halkaasaan u raraya ilaahay baa idinku dhaariyay inankaa yari ma wasiirkii arrimaha gudaha ma wasiirkii arrimaha dibadda ma wasiirkii qorsheynta qaranka ma wasiirkii maaliyadda mise waa maayarkii loo doortay magaalada Hargeysa waa ninkii maalintiina agoonta ku haystay dhulka maalintii dhaweyta waarkiisan ciidankii qaranka ee la hadlayay dawladda ee lahaa maayarka iyo maayar ku-xigeenkana soo weeraray oo xeradii ciidankii soddonaad ayaana lagu haystaa marka awoodda intaa leeg ee uu ku samaynayo waxa ee inankaa yare meesha uu ka keenay iyo dee maamulkan u dawladeed ilaa waa degaan baa loo doorto magaalada loo doortay inay qashinka iyo wadooyinka magaalada iyo sameeyaan waxa dawladda dhexe u geeyay ayaanu la yaabana taasina waa taa waa ogeydeen waa ninkii 15 May ka dhigay 18 May bedelo wixii ka dhacayna ay ogeydeen taasina waa taa waxay ay ahaayeen iyo waxay ku askunaayeen ilaa waa la Somaliland way istaqaana Somaliland waxay ahaayeen nimankaas markoodii hore ee ay ku shaqaysan jireen waa la garanaya maantana waa adiga arkay gafanayaal bay ogeeyeen geel cuni jiray marka taasina waa taa marka waxaan kale oo halkan ka sheegi lahaa maanta oo aan u sheegi lahaa inay reer wali xaafad waliba canshuurteeda ku dhisato wadooyinkoosoo lagu daydo sida reerkaa kale yeelay ee xaafadaasi yeeshay haddii uu apologize ka bixin waayo inankaa yari waxaan se la yaabanahay 23 kale ee loo doortay
صدح يلا باتنكي لو دورتي وحن يدين شيء لها وادركتان ما يركاي ما يركحين كذا وشن يلا باتن قول الدجان ما يركاي ما يركحين كذا صدح يلا باتنكي نكله haddaydi niman labadaa nin mooshin ku soo oogin oo meesha ka tuurin dee waa la qabtaane ogaada haddii kale idinkaa ha dhowta markaad u fulin weydeen amaradooda idinkana argagixisaa laidinku sheegaya reerihiin marka taasna waxaan u sheegayaa golaha deegaanka 23kaas inay mooshin ku soo oogaan oo waddankan la badbaadiyo war waddankan ha la badbaadiyo waddankii wuxuu noqday Soomaaliland la oran jiray dhaykeed carruur lagu hayo meesha carruurta yarar lagu koriyo waayo 7+1 baa socda marka maayarka iyo maayar ku-xigeenku 7+1 ku jiraan 7+1 waa labada waa nimanka dee wixii dawladdu lahayd maamulanaya iyagu marka taasna waxaan kaga baxayaa intaa caawa shirkeena jarayd intaas ayuu ku saabsan yahay ilaa iyo keena dambe iman doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu